qisadii malaayiinta qof ka ooyeen ee Qays iyo Layla. qisadan waa tii ugu yaabka badnayd ee dunida soo marta oo ay ka oohisay dad badan oo mucaashiqiin ah. buuraha, webiyada iyo badaha waa ka marqaati jaceylkooda xanuunka badan. qisadan waxay dhacday xilligii boqortooyadii Cabdullaahi bin Maalik bin Rabiica ee dowladii Ummiyiinta. mucaashiqii Qays magaciisa oo dhammaystiran wuxuu ahaa Qays bin Malawa bin Musaaxim bin Cabis. wuxuu dhashay 440 hijriga. wuxuu ku soo barbaaray maskax badnaan iyo fariidnimo. aabihii waxa uu ka dhaxlay gabayada Carabta iyo sheekooyinkoodii. Qays aabihii wuxuu baray garashada xidigaha iyo buuraha habeenkii. marka aan intaa kaga harno arrimaha Qays, Layla waa saaxiibadii Qays magaceeda oo dhammaystiran waa Layla bintu Mahdi bin Sacad bin Mahdi bin Rabiica. waxay dhalatay 444 hijriga. Layla waxay la soo barbaartay qurux badnaan iyo laba indhood oo wax sixraaya. dhirkeeda iyo jirkeeda wuu isku dheelitirnaa. waxay u dhalatay caddaan iyo qurux ziyaado ah. Qays iyo Layla waxay ahaayeen laba caruur ah oo ay isku keeneen qaraabada, oo xagga nasabka waxay ahaayeen ilmo adeer. ariga ayay u raaci jireen ehelkooda, sidaa kama aysan zuulin ilaa ay ka weynaaadaan oo Layla ka xijaabatay Qays sidaa ay diinteennu islaamka ah farayso, taasoo kicisay jacaylkii iyo hilowgii uu u qabay Qays Layla. asiga oo arki waayay quruxda uu hadda ku arkayo, wuxuu arki jiray Layla oo aan xijaabanaynin. markaasi ayuu yidhi asiga oo calaacalayo sidan, Layla ma waad weynaatiyo, waa adigan xijaabku isku waabaye, waafiyaha jirkiyo waayaha qurxoon waad iga dado. waayaha dhulkan wada joognay baan weli sii arkaa. wakhtigii tigiyo waagan yareen, alloo yaa wareeg dib weeciyo ina geeya waab iyo waadigii abiyada badnaa. markii la ogaaday labadooda jacaylka u dhaxeeya waa la kala fogeeyey. Qays ayaa loo diiday inuu yimaado Layla agteed. haddana iyadoo Carabta u aqoon jiran caab in wiil iyo gabar sheeko dhex marto, Qays waxaa soo food saartay murugo oo waxaa saameeyey fogaanshaha Layla iyo jacaylka uu u qabo Qays. Qays wuxuu bilaabay inuu ka fogaado ehelkiisa. waxa uu la saaxiibay buuraha. markay yaraayeen ariga u raaci jireen, asigoo xusaya maalmihii ay soo koraayeen ay caruur ahaayeen ayuu sida tan yidhi, Laylay badhaadhaha bartaad ku dhalatiyo beledkiisaayay berigaannu joognay aan wada barbaarne kaa bogan lahaaye. qiimaha bannaaniyo aan beelaha joognaa, waxbayaan baroortiyo booliyowga ii yimi nafta aan la bilmayn. wuxuu ku dhaartay inaanu dayn doonin Layla oo uu u tagi doono, taasi oo sababtay in Layla iyo ehelkeedii ay ka guuraan dhulkii ay deganaayeen si aan u arag Qays. maalinba maalinta ka dambaysa xaaladda way ka sii daraysay. Qaysna waxa uu ku wareeganayay buurtii ay ariga u raaci jireen. horaa loo yiri naf jaceylhaayo ma hargasho. jacaylka xanuun badanaa oo jahawareer badanaa. buurta waxaa la oran jiray Tawbaad iyo togii yaraantooda ku ciyaari jireen. waxa uuna yidhi sidaan, arlo kaa fog baa ku asqoobayo, maalmuhu anay ii ooynayaan. hogag baa arday ka agjeexdayo, oontii ka go'ay aridkeena beri ku ayaayumaa ku agmeeraya. Layla waxay maqashay dhibaatadii iyo wareerka haysta in adeerkeed. markaasay adkaysan weyday. kadib aabbaheed waxa uu ku xanaaqay gabayada iyo heesaha ee uu Qays u soo dirayo Layla ee ku faaftay bulshada. waxa uu ku dhaartay
uu ku xarimay inuu Layla arko. tani waa Layla oo doonaysa inay dhibaatada la qaybsato Qays, waxayna tiri saxaraad ag joogtiyo iyo Soomaal haadkiyo siigada dhacaysiyo seeraha fogaadiyo buuraha salkood iyo sabriyowka banaanada mar ma soo ziyaartaa saxariirka cashaqa ha inoo sinaado aan soo salaamay. Qays iyo Layla waa laba ruux isjeclaaba kuwii ugu jacaylka badnaa ee soo maray dunida. labada qalbi haddii ay kulmi lahaayeen waxa u hambalyeyn lahaa buuraha, webiyada, badaha, kalluunka badda ku jirana sacabka ayuu u tumi lahaa. laakiin sidaa ayaa dhacday. la soco qaybta labaad ee qisada Qays iyo Layla. si ay kuu soo gaarto qaybta labaad qisada, fadlan subscribe baa ka iloobin. haddii aad ka hesheen qisada, fadlan like inoo saar, fikirkaagan hoos inoogu reeb. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. tan iyo qaybta labaad ee qisada. mahadsanidin.